mudanayaal ka tirsan xildhibaanada golaha guurtida Somaliland oo kulan warbaahineed ku qabtay Hotel Barar ee magaalada Hargeysa ayaa waxay ku hambalyeeyeen gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland Garyaqaan Aadan Xaaji Cali laalistii uu laalay xeerka nidaamka garsoorka qaranka Somaliland oo maxkamadda sare laashay sidoo kale xildhibaanada ayaa ugu baaqay shacbiga reer Somaliland inay ilaashadaan nabadda iyo wadajirka iyagoo ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale ayaa waxa kamid ah hadaladoodii maanta halkan waxaan ka hadlaynaa anagoo xildhibaanada guurtida runtii marxaladda kala guurka ah ee dalku galay marxalad kala guura oo siyaasadeeyo arrimo badan ay geeska Afrika iyo gobolka ka jiraan halkan ka hadlaynay waxa kamid ah doorashada oo runtii maxkamadda sare ay ka soo saartay go'aankaas oo ahaa xeerkii lagu garay 2005 ee madaxweyne Daahir 2005 uu gudbiyay bishii February maxkamadda sare oo ku codsaday in doorashada golaha wakiilada maxkamadda sare ay xukunto madaxweyne Muuse uu ku dhiiriday runtii oo isaguna maxkamaddu u gudbiyay taana maxkamaddu go'aan bay ka soo saartay haddii saamin qaybsi noqoto de gobollo badan oo dulman baa jira laakiin maadaama anagu ummadoo dhan xildhibaano u nahay taa ma raba inaan ka hadlo maxkamaddu baan ku akiidinayaa go'aanka ay ka soo saartay golaha wakiilada doorashadiisa inay ku mahadsan yihiin maxkamadda iyo gudoomiyuhuba runtii takalana ka hadlaya waxa weeye xeerar in badan baa aragteen golaha guurtida iyo mudanayaasha oo ka hadlaya xeerar aan isu gudbinay muxuu ahaa golaha wakiilada xeerka garsoorka kamid ah xeerkii kufsiga kamid ah xeerar badan oo ay si qaldan aan isu gudbinay ama wax qayaalo badan oo qalad ay ku jireen oo sida madaxweynaha loogu gudbiyay aanu dhaliil ka muuqatay ayaa jirtay oo in badan aan maxkamadda sare shirgudoonkooda waraaqa u qoreen oo ay u gudbiyeen oo laga ashkatooniyay marka xeer kamid oo maxkamadda sare ay tafsiir ka bixisay baan runtii aanu golaana aan kaga hadlayaa oo leeyahay maxkamaddu way ku maadsantay maadaama wixii qalada iyadoo ay u igman tahay inay tafsiir ka bixiso waxaan ugu hambalyeynaa qaraarka iyo go'aanka ay ka soo saareen xeerka garsoorka oo muddaba muhmal ku jiray daraadii markii ay gaadhay maxkamadda sare gudoomiyuhu iyo xubnihiisa waxa weey macnaha sagaalka garsoore ay sida fiican ee xilkasnimada iyo kartidu iyo waxa weey macnaha ay ku jirto ay go'aanka iyo qaraarka uga soo saareen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo guddidiisii iyo xaakimadiisii sagaalka ahaa markii arkay inuu qalday way laaleen laalistaas aan loo hambalyo ugu diray markii uu gaaday inuu qalday ay laaleen oo ku hambalyeena laalista ay laaleen waxaan leenahay shaqo wacan ba qabateen gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnihiisa ka hooseeyaba marka xeerkaas sida uu ku laaleen ayaan maxkamadda sare iyo garsoorayaasha aan ku taageersanahay kuwa iyo intii kale la isku haystay hadal ku taagnaana inay soo celiyaan oo wadanka wixii sharci u noqonaya si fiican loo saxayaan soo jeedinaynaa arrinkuna maanta waa taageerida maxkamadda sare taageerida iyo hambalyeynta xeerkii garsoorka ee labada gol isku qabteen maxkamadda sare laashay waa ku hambalyeynaa gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali iyo garsoorayaasha la shaqeynaya sidoo kale xeerkii kale isna loo madaxweynuhu gudbiyay ku codsaday doorashooyinka isna habkii go'aankii qaado ugu wanaagsanaa ka gaadheen isna waa ku hambalyeynaa waxay raacday intaasi golaha guurtidu waa golo nabadgeliyo waa golo dhaqan waxaan rajaynayaa in golaha guurtidu ku milmin siyaasadda iyo waxaan isku hayaan asxaabta qaranku ay sidii lagu yaqaanay ee dhaqanka ahayd ee caadada ahayd iyagu ahaadaan dad dhexdhexaada oo u dhaxeeya ummadda reer Somaliland Maxamed Jookar Honkable TV Hargeysa magacaygu waa Suldaan magacaygu waa Seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waanu libisanaa isku midna waanu nahay anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warmaahay run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Somaliland ama bishoo dhan ku hadal $5 oo kaliya Samtel shirkadda dadweynaha